dhulboobka maayircidiin ee aan xirin birmageyda iyo miskiin midna daawaday ku soo dhowaada warbixintii labaad ee dhulka degmada Berbera ee ku saabsanayd xaaladaha ku duugan muddadii 13 sano ilaa 14 sano ahayd ee maamulka degmada dowladda hoose ee Berbera uu ahaa garwadeenka magaaladaas kaas oo ay bulshada deegaanku ku casuumeen markii labaad inuu noqdo hoggaanka degmada daro se isagu muddada ka aarsanayay dadkii sida ay u galeen waxa tusaale idinku filan halka ay degmadani adeega bulshada ka taagan tahay haddaba aan ku noqono qodobka warbixinteenan oo ku saabsan qaybta dhulka oo ah qodobka aad iyo aad u xasaasi ah marka aan hore u eegno managementiga dhulka darajada uu kaga jiro shaqooyinka ay dowladda hoose u xil saaran tahay labada shaqo ee ugu waaweyn ee laga rabo dowladda hoose ee qabtaan waxa ay kala yihiin maamulka dhulka iyo B oo ah maamulka qashinka waxaa laga yaabaa in sideedaba u fahansanayn maamulka 14 sano soo talinayay magaalada Berbera waayo waxaad fahmaysaa sida uu maamulay muddada uu joogay magaalada marka hore magaalada master plan-ka kala qayaxa meesha biyaha marayo iyo meesha leedhku marayo sidoo kale cayimaha wadooyinka waaweyn iyo kuwa yaryar meelaha qaybaha ganacsiga loogu talagalay iyo meesha deegaanka loogu talagalay macadda magac dhinacyada ay magaaladu u fidayso dhanka ay ka soo xidhantay waxaa lagu shaqeeyaa subax walba waxa maskaxda ku soo dhaca maayirka magaalada cidin iska dhaaf wax kale ee meel looma fadhiisto qorshe balse waxaa lagu dhex maamulaa gaadhi dhexdii mar labaad sida aynu ognahay marka area laga saaray tombleenka ugu horeeya waxa baleenka maamka dhinaciisa lagu dul calaamadiyaa calaamad waliba waxa ay u taagan tahay isbitaal saldhig masaajid dooxyo iyo soona kastaba magac isku mid ah ayuu bilodku noqonayaa eriyada sida taleefanadu u leeyihiin area code magaalada ilaa street ka guryaha lagu tago iyo nidaamka dhulku leeyahay bulad una shaqeeya cabir nashqad ah waxaana loogu talagalay in aad tegi karto dhulkii aad u socotay sidaas bay la mid tahay maamulkani waxa uu lumiyey baadi soocdii dhulku lahaa isaga oo ku talagalay ama ku talagalkiisu yahay in aanu la helin wixii uu khalday iyo wixii la musuqmaasuqay la soco qaybaha dambe oo aynu ku dheeraan doono dhulboobka maayircidin waxa aanu ku soo bandhigi doonaa magacyada shakhsiyaad birmageyda ah waxaynu sheegi doonaa in aan la xeerin miskiin iyo mid magac iyo manfac ku lahaa qaranka midna isla markaana aan la qiimayn mid qiimo lahaa iyo mid shacababa ku mahadsantahay inaad ka mid tahay daawadayaasha Xogreeb TV ka mid noqo kumanaanka qof ee ku taxan Facebook-geena Xogreeb follow soo dheh oo nagu soo biir sidoo kalena ha ilaawin share iyo comment kuwa noo mihin daawade waad ku mahadsantahay sida aad noogu xidhan tahay dhulboobka maayircidiin ee aan xirin birmageyda iyo miskiin midna daawaday ku soo dhowaada warbixintii labaad ee dhulka degmada Berbera ee ku saabsanayd xaaladaha ku duugan muddadii 13 sano ilaa 14 sano ahayd ee maamulka degmada dowladda hoose ee Berbera uu ahaa garwadeenka magaaladaas kaas oo ay bulshada deegaanku ku casuumeen markii labaad inuu noqdo hoggaanka degmada daro se isagu muddada ka aarsanayay dadkii sida ay u galeen waxa tusaale idinku filan halka ay degmadani adeega bulshada ka taagan tahay haddaba aan ku noqono qodobka warbixinteenan oo ku saabsan qaybta dhulka oo ah qodobka aad iyo aad u xasaasi ah marka aan hore u eegno managementiga dhulka darajada uu kaga jiro shaqooyinka ay dowladda hoose u xil saaran tahay labada shaqo ee ugu waaweyn ee laga rabo dowladda hoose ee qabtaan waxa ay kala yihiin maamulka dhulka iyo B oo ah maamulka qashinka waxaa laga yaabaa in sideedaba u fahansanayn maamulka 14 sano soo talinayay magaalada Berbera waayo waxaad fahmaysaa sida uu maamulay muddada uu joogay magaalada marka hore magaalada master plan-ka kala qayaxa meesha biyaha marayo iyo meesha leedhku marayo sidoo kale cayimaha wadooyinka waaweyn iyo kuwa yaryar meelaha qaybaha ganacsiga loogu talagalay iyo meesha deegaanka loogu talagalay macadda magac dhinacyada ay magaaladu u fidayso dhanka ay ka soo xidhantay waxaa lagu shaqeeyaa subax walba waxa maskaxda ku soo dhaca maayirka magaalada cidin
iska dhaaf wax kale ee meel looma fadhiisto qorshe balse waxaa lagu dhex maamulaa gaadhi dhexdii mar labaad sida aynu ognahay marka area laga saaray tombleenka ugu horeeya waxa baleenka maamka dhinaciisa lagu dul calaamadiyaa calaamad waliba waxa ay u taagan tahay isbitaal saldhig masaajid dooxyo iyo soona kastaba magac isku mid ah ayuu bilodku noqonayaa eriyada sida telefoonadu u leeyihiin area code magaalada ilaa streetka guryaha lagu tago ayuu nidaamka dhulku leeyahay bulad una shaqeeya cabir nashqad ah waxaana loogu talagalay in aad tegi karto dhulkii aad u socotay sidaas bay la mid tahay maamulkani waxa uu lumiyey baadisoocdii dhulku lahaa isaga oo ku talagalay ama ku talagalkiisu yahay in aanu la helin wixii uu khalday iyo wixii la musuqmaasuqay la soco qaybaha dambe oo aynu ku dheeraan doonno dhulboobka maayir cidin waxa aanu ku soo bandhigi doonaa magacyada shakhsiyaad birimageyda ah waxaynu sheegi doonaa inaan la xeerin miskiin iyo mid magac iyo manfac ku lahaa qaranka midna isla markaana aan la qiimayn mid qiimo lahaa iyo mid shacababa ku mahadsantahay inaad ka mid tahay daawadayaasha Xogreeb TV ka mid noqo kumanaanka qof ee ku taxan Facebook-geena Xogreeb follow soo dheh oo nagu soo biir sidoo kalena ha ilaawin share tayo kuman kuwa noo mihin daawade waad ku mahadsantahay sida aad noogu xidhan tahay